jacaylka ladaab labadii dareenku mideeye eliskii mataana wadaage ayaa caawaba kulley baane iminkana dhegaystayaal maalmahan baraha bulshada si weyn waxaa loogu hadalhayay wiil dhalinyaro ah oo magaalada Hargeysa hal mar ku guursaday 2 gabdhood. wiilkani oo lagu magacaabo Bashiir Saxardiid ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay arrintan isla markaana uu door biday inuu hal mar wada guursado. wax gaaro carqalad ugu dhalisay ma jirto, laakiin ma maskaxda ka keenay inuu labada mar guursado. bacdayna ku guuleystay, bacdayna waa la aqal galay. qaabkee uga dhaadhicisay in aad hal jeer wada guursato? Raysii degan ma wada dhicin jiray markii ay soo galeen sibaaxiga xaliigan oo noqolooda markii hore ee aad haasawaha bilaabayseen ma is ogaayeen labada gabdhood way soo ilaa iyo imisa sano ama imisa bilood ayaad wada haasaaweyseen adoo ilaa 8 bilood haasaan marka maadaama aad tiri way is ogaayeen ma jirtaa wax aad ku yiraahdeen marka aad labada gabdhood u sheegtay in midba mid kale aad haasaawinayso waan soo sheegay bacdi waan gurigan ana isku geen jiray oo isku gurigan wada bilsan jirnay way soo ogaayeen oo isku guri ayaad ku shukaansan jirtay gabdhaha laakiin waxa isweydiinaya aniga shakhsi ahaan dabcan dad kalena isweydiinayaan waxa ay tahay maxaad u sheegi jirtay marka aad hor fadhido iyagoo la joogan labadooda ku oran jiray iyagu ma aad si fiican oo aad iyo aad ay ugu qanacsanaayeen baydabooda way laayeen daana on jeclaa marka waan ku oran jiray labadooda marka sidee uga dhaadhicisa haddana arooska in uu hal maalin dhaco anaa ka dhiciyo ka dhaadhiciyey markaa ogolaaday iyaguna ga yeelay ma jirtaa wax caqabad ah oo aad kala kulantay marka inta aad ku jirtay haasaawaha iyo ma sheegi marka hadda isku guri ayayba gabdhihii ku nool yihiin guriga ku nool bal waxaad iiga warantaa waalidiintaada iyo waalidiinta gabdhaha arrintan maxay ka yiraahdeen iyaga hore uguma sheegin ilaa intii hawsha ay dhammaanaysay maxaan ku dhahday guriga keenay hore uguma sheegin markaas ma ogaadeen maxaad kala kulantay marka waa si fiican oo ayaan arooskayga loo qabanqaabiyey dhaqaale ahaan bal ka waran sidaan arkay baraha bulshada sawirkaada waxaa tahay inan yar marka maxaa mili kartaa sababta waa waxa ugu horeeya ka fikiraan ragga qaarkood dhaqaale ahaan waa markaan qiyaasay danaha waxaan ugu galay waan xamili karaa marka maxay kaa tahay waa la gartay ninka in uu guursado mid kalena uu ka daba keeno laakiin in labadooda hal mar aad wada guursato dadka waxay isweydiinayaan sababta maxay tahay oo dad qaar waxay ku fikrayaan muxuu mid inuu guursado midda kale uga daba keeni waaye waxa uga daba keeni waaye marka midka daba keento waxa imanaya hinaada imanaya mushkilad badan baa imanaysa gabadha hore si kacdan baa dhacaysa marka hadalku waxa ku yaraaday waxaan isku mar ka wareegsan isku wanaagsan waxaa jira in ragga qaarkood ee xaslayaasha ah dabcan inay ka baqaan in ay ku daraan xitaa mid kale iska daayo in ay hal mar wada guursadaan marka taa maxaa ka leedahay waxaan leeyahay ku dhiirada guurka ka baqanin أنا رجع هذا صاريا أنتي أود ما لا أنتي أنا أود ما جت لكن تار رجع ياد بفراك بحين يساسوما مطر وما تصنعي رنجي آدي يدو فرحسناي ما شاء الله آدي يدو فرحسناي والله فرحة آدي يدو فرحة والله كل يسير فرحة ترى اللي يرد أنا كوسنا حوالي كوسنا كددار آدي يدو كوا كوسنا ونجين وحسوا ونجين وتصوف ونجين غير صوف ونجين بلينيا عروسكي لبدي ساعة عروس marka wax isla kulli maanta dad badan oo tii wareys ku dhici lahaa farta wadnaha ku hayay dad soo kaxaynaya marka dumarkan waxa la waxba la yaabinay hadii laba laga dhigay ama saddex laga dhigayba dunidana idinka ugu badan